الحمد لله رب العالمين إلهي baa mahadle akhyaarta halkan isugu timid yeerida aniga lahaa Soomaaliduna waxa taa ninkii dadka u yeeray baa hadalka bilaaba ayaan u kacay maanta saacad ku dhow kowdii meelaha waxaan la ii keenay baaq dhalinyaradiinan uu hogaaminayo Cabdikariim Axmed Mooge oo imika ahaa sharaxii ugu codka badaa magaalada Hargeysa ee dhigay record aan hore loo dhigin u malayn maayo inuu jiro murashax Yurub iyo meel oo adduunkaaba cod intaa leeg kaligii helaa oo kale miidiyaha ka dalbaday waxaan doonayaa arrintaa oo xaqii codbixiyaashii la doortay la hor taagan yahay in cadaalad ahaan uu soo dhex galo marka anoo taa ka jawaabaya isla saacaddiiba waan raadiyey inaan helo oon ku idhaahdo diyaar baan ahay ina kale mar haddaad baaq dee hawada soo marsan anigu idiin soo marinayo baaqa hawada ii kale anigu tiwaatirkan idiin soo marin maayo miiran idiin soo marin maayo ii kaalay aan ku wada hadal leh arrintaasay ku timid marka koowaad aada iyo aad ayaan idiin soo dhaweynaya waxaan idinku hambalyeynayaa isaga iyo raggii la kaambangaray ama la socdoba guushaa weynaa gaadheen waxaa kaloo hambalyeynayaa dhammaan shacabka somalilan meelay joogaanba da' kasta rool iyo caruur sheekh iyo shariif miyiyo magaalo rag iyo dumar qurba joog sida wanaagsan ee niyad samaanta aynu doorashadii u gallay dadku markay niyad samaadaan ee calooshoodu isu fayowdahay wax wada qabsanayaan ilaahayna wuu gargaaraa ilaahayna wuu nagu gargaarayo waa doorashadii gaari shil galay oo dad ku dhinteen mooyaane aan wax dhibaatay ka dhicin taasina awood aanu leenahay maaha ilaahay baa inagu gargaaro nuga mahadnaqaynaa innaguna caloolsamaan baynu ku dadaalnay nabadda way noogu dhammaatay wanaagna way noogu dhammaatay ummadduna way noogu majeertay taa aynu ilaahay saa nagu siiyey waxaynu ku dadaalanaa inaanay gelin wax shaasheeyaa doorashadeennii doorashooyin ka dambeeya golayaasha iyo mayradeelana inay ku dhammaadaan si turxaan la-aanah oo wixii yimaadaba la qaboojiyo waxaan aad uga xumahay inaanu ku dadaalnay in hablahaas doorashada qayb ka helaan annagu xukumad ahaan koota in loo sameeyaanu soo jeedin golaha sharci dejintaa nagu diiday baarlamaankaa nagu soo diiday waxaanu u howlgallay waxa wixii carqalad ku noqon kara hablaha iyo dhalinyarada doorashada inaanu ka dhaafno dhammaan dhaqaale lagu waajibiyey inuu qofku doorashada ku galo waa ka dhaafna hablaha haddana nasiib darro wixii waxba kama naas caddaan oo hablihii lama dooranin laba saddex marka doortay dhimaatinkeenna maanta waxaanu idiin ballan qaadaynaa xaqa aa leedihiin iyo doorashada ka cabateen wax alle wixii xaqdarriya xadguduba inaanu kala howlgalno in xaqa iyo lagu soo celiyo waddadii sax ahayd waddo kasta oo la maranayo in loo maro waddo sharciya baaqiinii jawaabtiisa waxa weeye waanu idin garab taaganahay wixii xuquuqa ee doorashadaa ku leedihiin ee codbixintaa ku leedihiin ee miisaankaa saataa ku leedihiin inaanu u diyaarnahay inaanu idinla howlgalno oo waddada xaqa ah ee dawga an lagu soo celiyo idinkana gardarra idin qaadi mayno oo wax gardarraa oo xad ka gudubsan dee socon mayso waxaad xaq u leedihiinna anigu madaxweyne ahaan dee waan idinla hirgelinaya sharcigaasaa inoo dhexa baaqii aad tidhahdeen cadaaladda ka soo dhex gala intaasaan ka idhi qorshahaa waddaan iyo waxaa yeeli doontaan iyo waxaa ila imanaysaan dee idinka idin taalla kulankeenna maantu jawaabtii baaqiina ayuu ahaa annaguna dee midiyaha noo soo mariseenoo ismaan araga madaxdii xisbiga iyo xukuumadba waxaan ahayd inaanu ka jawaabno oona inagu daahin daaqaas sababtaan u yeelana waxaa weeye xasaasiyad belayn doorashooyinka dadka wax doorta codbixiyaasha in badan maynu soo joogno xamaasad weyn bay qabaan adeer codkaagi sahalo mahayn waxaa weeye wixiin waa la diiday marnama diiday waxaagii nina ma diidi karo codkiinii iyo miisaankiinii xisbi iyo qof iyo sharci midna lama diidi karo
laakiin dee wuxuu sharciye martaa oo waa boolotigi oo waa hawl badan yahay si degan dadkiina taa hala ogaado hala deganaado idinkuna wixii aad tabateen iyo waxa qaloocan iyo fikradiina dee waxay la tahay waqti aanu degannahay oo laisu diyaar garoobay aynu ka wada hadleen anaga intaasina garantay madaxweyne marka hore aad iyo aad baan kuu salaamayaa waxaanan kaaga mahadnaqayaa sida milgaha leh sharafta leh karaamada leh ee degdega ah saaka ayuunba ahayd markii aanu shirka jaraa'id aan qabtay shirka jaraa'idna wuxuu daaraa uun waan ogahay wax walba inay sharci maraan waan qadarinayaa waana sheegay shirkaygii jaraa'id waxayse ahayd baaq codsiya in la ixtiraamo codka shacabka inta badan oo aniga ii codaysay sidoo kalena baaq walaalnimo waxaan u diray mudanayaasha golaha deegaanka ee layla doortay oo aan markaa iyagana si karaamo iyo sharaf leh uga codsaday inay iyaguna ixtiraamaan dadka inta badani qofkii ay u codeeyeen in maanta la garab istaago madaxweyne waa kuu sharaf xukuumaddaadana waa u wanaag in baaqii naga yimi aad markiiba nooga soo jawaabto oo aad noo yeedho waa sababta aad u tahay madaxweynaha qaranka waa sababta aad u tahay odayga somalilan intaana waan kaa filayey waan kaaga mahadnaqayaa waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa walaaladeeda kale ee xildhibaanada ah ee layla doortay ee iyaguna wanaagun la jecel somalilan ee wanaagga la jecel hargeysa marka madaxweyne anigoo ku hadlaya magacii xildhibaanadiina la wada doortay dhammaantood xisbi walba ha ka sharxnaadaan xisbi walba ha ka soo baxaan aad iyo aad baan madaxweyne kuugu mahadnaqaynaa waa ka mahad celinaynaa inaad markaa naaqbashay shacabka somalilan weliba gaar ahaan shacabka reer hargeysa ee codeeyey ee naga filaya inaanu u shaqayno oo aanu u dhisno hargeysa cusub iyagana waxa uu khayra u wanaaga in ilaahay siiye madaxweyne ixtiraamaya oo dhegaysanaya oo baaqooda anigu aan afkooda dee ku hadlayan lahaa intii badnayd baa ii codaysaye arrintaha lasoo dhex galo markiiba ka soo jawaabay iyaduna markaa waa sharaf weeye markaa dadkiina doortayna sidaa ha u ogaadaan insha allahu tacala madaxweynena inta hadhay waanu insha allahu tacala kula fadhiisan waanu kula dhammayn waa ogol lahay sharciga inay marto waa ogol lahay inay fadhiyo badan marto waa ogol lahay in maaragtay la wada hadlo waxaanan rajaynayaa un insha allahu tacaala in dadkeenna wanaagsan ee doorashada wanaagsan ay u dhacday ee midoobay ee markii ugu horreysay taariikhda hal qof uga wada codeeyey koono kasta oo magaalada ah iyagoo iska ilaawaya qabiilka iyo xaafadahaba in markaa insha allahu tacaala waxay raalli ku yihiin oo wanaagsani golaha deegaanka cusub dhexdooda ka soo baxo shaqo wanaagsan la wada qabto iyadoo la midaysan yahay hargeysadaynu jecelahayna markaa aynu dhisano waayo caasimadii weeye magaaladii qaranka weeye magaaladii la wada lahaa weeye hawl weyn baa halkan taal 17 xildhibaan la doortayna xil weyn baa saaran qofka mas-uuliyadda qaadayana wuxuu u baahan yahay inuu isku wado dadka reer somaliland oo dhan waxaa la rabaa dadka reer hargeysa in la isku wado qofka mas-uuliyadda qaadaya markaa uma baahna inuu dhinac u janjeero inuu maaragtay xisbi gaara ku abtirsado waanu karaameynna xisbiyadaanu ka soo baxnay waanu ka mid nahay laakiin haddii dee kuraasta aanu u soconno aanu helo ummadda oo dhan baanu u shaqaynaynaa qaaraan xisbiye ku jirin baa jira qaar xisbiye ku jira marka ummaddana sidaa wanaagsan ee khayr kale baan ugu shaqaynayna madaxweyne marka halka ugu dambaysa waa kuu mahadnaqayaa wanaagga iyo degdega iyo baaqa aad noogu soo jawaabtay waanay ahayd iyadoon baaq ahayn inaanu dhammaantayo xildhibaanadu karti si fiisid kuugu nimaadno oo kusoo booqanno marka tanna waxaan uga faa'iidaysanaa madaxweyne booqashadayada xaqa aad noogu lahayd inay tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweynaha wasiirada mudanayaasha xildhibaanada labada goloba ciddii ka fadhida mas-uuliyiinta kale ee qaranka mudanayaashii hore ee golaha dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u malaynayaa munaasabadda waxay ku dhan tahay intii madaxweynuhu yidhi cabdikariinna si wanaagsan buu u hadlay waxaynu la soconnaa aynu guddigan wada qadarinaynaa waa laga werwersanaa annaka lafteedaa werwersaneen qoladeeda xukuumaddu werwerka ugu badan madaxweynuhu waxaanu malaynayaa anigu markaa dhakhtarna waan ka imi anigii madaxweynaha iyo intii doorashadu ay socotay dhowrkii casho intii ka dambeysay malaa maalintii 20 jeer ka badanna waanu wada hadli jirnay 10 jeer ka badanna waanu kulmi jirnay waa mare doorashadu way nagu cusbay
doorasho laba golo waa mare muddo doora bay nagu yara rafato xamaasad fara badan baa maxaan ku dhahdaa gashay laakiin waxaynu kaga baxnay qadar ilaahay in doorashadii shacabkeenna ummadda reer somalilan aan deera hirdin waxaynu maqli jirnay deera may hirdiin shilkaa gaadhi ee dhacay waddadan hargeysiyo maxaan ku dhahdaa berbera ayaa wax shila ka dhacay waxaa halkan inoogu yimi 31 diblomaasi oo dowlada ka socda oo ay 8 safiiro dowlada waaweyn yihiin inta kalena safiir ku xigeen iyo diblomaasiyiin ay yihiin waxay inoogu yimi dhowr iyo 89 rag saaxiibo somaliland iyo dad adduunyada had iyo jeer loo dirto inay monitor gareeyaan maxaan ku dhahdaa doorashooyinka waxay guddigood ka wada markhaati fureen imika socota hadda way hadlayaan ayaamaha nimankii iyagoo guddigood maaragtay ra'yigoodii isu keenaya in ay guddigood la yaaban yihiin doorashadii somaliland noocay u dhacday horta kolley waxay nagu wada waajibaa dadkana had iyo jeer calafna waa intii alla qoray waxaynu u baahanay inaynu ilaalino doorashada wax fara badan baa somaliland inoogu siyaadiyey inaynu ilaalino waxaa laba ah lagama maarmaan waxa ah haddii aan doorashadan cid wal oo doorashadaa gashay 900 in ka badan ayay marayaan maxaan ku dhahdaa marka la isu geeyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo xildhibaanada golaha maxaan ku dhahdaa baarlamaanka waxaa dhacaya in ka badan 600 ayaa xil waayaya waxaynu u baahannahay iminka ayaantii hore waxaan nidhi yaan la dabaaldegin sababtaan aanu nidhi yaan loo dabaaldegin waxa ay ahayd maadaama waxaan doorashooyinku inagu cusub yihiin nina wuu guulaystay oo dabaaldeg buu u baahan yahay nina de wuu dhacay wixii uu haystay baa ka raacay effortkiisii baa ka raacay marka xoogaa shimbira waaqleyn buu u qaadanayaa ninka kale marka waxaynu u baahannahay cid walbana inay xaqeeda hesho haddii kelmadda waan idin xasuusinaya haddii cid walba ay xaqeeda weydo ama cid walba xaqeeda la siin waayo wanaagina dhex ooli maayo marka waxaynu u baahannahay waa tartan siyaasi ah waa tartan doorasho waxaynu u baahannahay tartankaa doorasho inaynu taxamulkiisii yeelano in ay cid waliba ay hawsheeda samayso loolanka siyaasigihii waa meeshiisa tartanada siyaasigihii waa meesheeda wax waliba waxay u baahan tahay inay hufnaadaan waxaan marinaynaa markaa iminka doorashadii way dhammaatay waxaa hadhay qodob sharci waxaa ka hadhay labada gole xilligii ay fadhiisanayeen iyo maxay ku fadhiisanayaan golaha baarlamaanka waxaa fadhiisanaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan qodob dastuurka qaranka ah ayaa siinaya inuu madaxweynuhu fadhiisiyo golayaasha degaankana anigaa fadhiisinaya cid kaloo fadhiisin karta ma leh anigana xeerka wax ku maamuli doontaan meeyarada barasaabadu ee lagu maamulo gobolada iyo degmooyinka law number 23 2019 ayaa anigana isiinaya article 66 inaan caddeeyo maalinta aad fadhiisanaysaan annaka horta intaasaa nagaga hadhay intaa waxaanu rabnaa si nadiifa oo wanaagsan bay u soconaysaa qodob sharci baa dhiman qodobkii sharciya dhinaa waxa uu noqonayaa ka marka ay maxkamadda Morodishe Hargeysa gobolka dhaarinaya burco cerigaabo laascaanood mid walba gobolkeeda dhaarinaya maalinta uu gobolku dhaariyo golaha degaankuna muddo yeelanaya aniga muddadaas la igala xisaabtamaya golaha wakiiladana madaxweynuhu muddo yeelanaya muddadaas ku qabanaya waxaan kulli soo jeedinayaa qolada ay ku rafanaysaa waa annaka waxaanu ku dadaalaynaa inay dariiq wanaagsan marto dariiq sharciya marto hufnaan marto cid walbana xaqeeda maxaan ku dhahdaa la siiyo waxaynu u baahannahay had iyo jeer gadoodka dadka waa la geliyaa xamaasada doorashaduna gadood bay leedahay yaan gadood dadka la gelin taan ka wada ilaalin